ninka dumarka marna aysan iloobi karin. intaan noolnahay waxaan la kulannaa dad kuwaasoo na dhexmaraa sheekooyin yaryar, laakiin xusuusooda waxaan haynaynaa waqti aad u dheer. waxaa jiro dad kuwaas oo muddo dheer aan isla noolnahay, laakiin xusuusteena si fudud ayay uga bixi karaan. sirta ka dambayso qofka aanan iloobi karin ayaa waxay tahay unisiyo furfurnaan iyo kalsooni, taasoo dad badan aanan ka helin. siduu ugu weyn yahay qof gabadha weligeed hal mar ay la kulantay, taas oo xusuusihiisa qalbigeeda weli aysan ka bixin. midna waxay isla nool yihiin muddo dheer, haddana xusuusihiisa way ka tirmaan. halkan waa janalka Rafiiq Almacruuf. waxaa jiro arrimo taas oo ragga qaarkood ay ku reebaan qalbiyada dumarka iyo xusuusahooda. ma nin xooggan ayuu yahay, mise waa nin indhisarcadista, mise waa jacayl. waa kuma ninka dumarka aysan iloobi karin? waa nin naxariis iyo caqli badan, kaasoo laga dareemi karo dhammaan dareemihiisa. dumarkuna jacayl ayay u qaadaan qofkan, mana iloobaan dumarka qofkii u xanaanay si wanaagsan. waana midka dareensinaya markay isla socdaan in ay tahay dumar isagana rag u yahay. waxay u jeclaan doontaa si xad ka baxa, mana iloobi doonaan dumarka qofka jacayl zaa'ida u muujiyo iyo furfurnaan dhanka dabeecadda. mar walba nooga sheekayo dabeecadda iyo quruxda ay leedahay, una dhegaysta sheekooyinkeeda si kalgacayl iyo farxad ay ku dheehan tahay. dumarkana ma iloobaan ninka ka masaxa ilmadeeda, taageerayna xilligay u baahan tahay, kuna caawiyey dunidan aadka u ballaaran, dareensiina muhiimadda ay u leedahay iyo booska ay ka taagan tahay, kana fakaro ayada, dareemana waxyaabaha shucuurteeda, siyana ixtiraam, la wadaaga aragtiyadeeda, kadibna uu weydiiyo inuu kala qayb qaato wax walba, una sheego dareensiina in ay tahay jawhar aanan la iibin karin. iska cafiyo haddii ay qalad gasho, talana ka sio qaladkeeda si jacayl iyo eraya macani ku jiraan. ixtiraamo qoyskooda, una muujiyo jacayl, iyadana kula taliyo in ay waalidkeeda barriya u noqoto si wax walba u gaarto. dumarkuna ma iloobaan qofka kalsooni aanan shalay lahayn siiyo, fahmana dhibka haysto, raadiyana xalkeeda, lana ooyo xilligay oynayso isagoo aanan ka xishoonayn ama aanan qarnin ilmidii. ugu dambayntii qofka jacaylkeeda ku muujiyo bulshada dhexdeeda, xitaa si walba waqtigu u dheeraado, weligeeda ma iloobi doonto. waad noqon karaysaa qof dumarka marna aysan iloobi karin.